Soo dhawaada saaxiibayaal waxaynu idin haynaa maanta sheeko cajiib ah oo ku saabsan iskaabulanimada. Weligaa ma ku fikirtay in faa'iidooyin ay ku jiraan iskaabula in la ahaado? Inaad iskaabula tahay micnaheedu ma ahan inaad cidlo tahay sida ay dad badan aaminsan yihiin. Waa hubaal in waalidkaaga, qaraabadaada iyo saaxiibada ay marar badan ku weydiin doonaan su'aalaha ku saabsan sababta aad u guursan la'dahay iyo waqtiga aad reer samaysanayso. Laakiin ragga iyo dumarka muddada dheer iskaabulada ahaa waxay aaminsan yihiin inay jiraan sabab ay ku fiican tahay noloshaasi. Waa isku mid haddii aad horay u guursatay oo furiin u dhacay iyo haddii aadan weligaa guursanin. Haddaba dadkaasi waxay sheegayeen in iskaabulanimadu ay ku fiican tahay lixdan arrimood. 1. Xeerarka adiga ayay gaar ku yihiin. 2. Ciriiri la'aan. 3. Naqshadda dookhaaga ah. 4. Hagaajinta waxa halaysan. 5. Remote-ku waa ku kaliga ama hagista kaliga leewayaan. Lacagta oo ku baaqata. Waan ognahay in marka nin iyo xaaskiisa ay isla nool yihiin uu badanayo kharashka baxa, balse hal qof kaligiis ayuu baaqanaysa lacagtaas inteeda badan. Mararka qaar xitaa waxaa laga yaabaa inaad la soo cuntayso saaxiibo kale, kharashka ku baxaya dharka iyo adeegyada kale ayaa xitaa ku baaqanayo. Gabagabo, qormadan ujeedadeedu ma aha inaan dadka ku dhiirigelinayno iskaabulanimo, balse waxaan ku cabirnay sida ay dadka qaar uga eegaan dhinaca laga eegin. Waana mawduuceena maanta sababta aan u soo qaadanay oo ah faa'iidooyinka ku jira in iskaabula la ahaado. Waan rajaynayaa saaxiibayaal, daawade, saaxiib, dumaashi, walaal, intiinanba inaad wax badan ka faa'iideen adeer iyo eedo, abti iyo aayo. Soo dhawaada saaxiibayaal, boggan follow inoo dhaha muuqaalkaana share gareeya. Mahadsanidin.